isuduwaa wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ee gobolka Sanaag Ismaaciil Saalax Dhegjaaf ayaa waraysi u siiyay telefishinka caalamiga ee Star TV waxa uu kaga warbixiyay xaaladda guud ee xoolo dhaqatada gobolka Sanaag iyo ka wasaarad ahaan sida ay u daweeyaan ugana hortagaan xanuunada xoolaha ku dhaca. Isuduwaa oo Star TV kala hadlayay xafiiskiisa xarunta xanaanada xoolaha ee degmada Ceerigaabo ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay waxqabad sanadeedkii sanadkii tegay iyo qorshaha sanadka cusub. waxaana uu isuduwaa wasaaradda ugu baaqay inay kordhiyaan shaqaalaha iyo gaadiidka ka howlgala gobolka Sanaag maadaama gobolkaasi yahay mid baaxad weyn. isagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxaa daladiisi ka mid ahaa. waxaan warbixin ka siinayaa sanadkii dhamaaday howlgalkii aan fulinay iyo waxaan noqonay oo kooban. markaan ka hadlayo xagga xoolaha waxaan talaalay nus milyan neef oo ari ah ayaan talaalay oo cudurrada faafa ka talaalay. waxaan kala daaweynay 1,437 neef oo isugu jira xooluhu waxay ka koobayeen geel, ari, kamaan, lo. marka hawshaas waan fulinay waxa kale oo yara aan halkan goobjoog ka ahayn oo fulino dheeraad ku ah 10,000 oo neef iyo 10,230 neef oo stock lagu sameeyay oo gaar ah oo iyagana aan caafimaadkooda sugnay oo dadkii xooluhu ka baxeen hay'adda la yiraahdo muxuu ahaayay care ugu deeqday kan dhaleedna ay fulinaysay qaybintooda iyo howlahooda. intaasna waxa weeye barnaamijkii hore ee sanadkan waxaanu dirajeynaynaa in ka sii badan inaanu isticmaalo oo qabano. wasaaraddan waxaanu ka rajeynaynaa gaadiidka loola soo badiyo, shaqaalaha loola soo badiyo, dawada intii hore looga soo badiyo ilaa iyo intii karti ah nolol qaban karayo in horumar lagu sameeyaan rajeynaynaa. nasiib wanaag cudurrada faafay khatartii kama jiraan gobolka Sanaag anagu intaan aragnay ama aanu marraba. hase yeeshee dadkii markii abaari dhacday sanadka oo xagga bariga gobolka Sanaag ay ka dhacday waxay isku soo guuriyay dad fara badan dhinaca galbeedka iyo dhinaca koonfurta. dadkaas oo kala jabay xagga gobolka Sool iyo galbeedka gobolka Sanaag iyo xoogaa yar oo xagga buuraleyda tagay. waa la yaqaanaa xooluhu markay meel isu tagaan kulliba xoogaa ay isu keenay bushi. marka anaguna inta waan ku dhex jiray iminka gaarigii mobile teamka wuxuu joogaa garadag aageedaas maraya oo dawadii ka wada. Cabdiraxmaan Axmed Ilisar fogaan aragga xorta Star TV magaalada Ceerigaabo.